wasiirka awqaafta arrimaha diinta Soomaaliya Muqtaar Rawa oo Mansuur oo maanta ka hadlay shir looga hadlayay diiwaangelinta madaniga ayaa waxa uu sheegay inay muhiim u tahay sugidda amniga balse marka hore loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii loo heli lahaa amni buuxa oo keeni kara in diiwaangelin la sameeyo. dhinaca kale waxa uu sheegay in muhiimadda ugu weyn ay siin doonaan sidii loo heli lahaa amni loogana adkaado al-shabaab kadibna tirakoob guud oo dadka la sameyn doono taas oo qayb ka noqon doonta sida uu sheegay adkaynta amniga. runtii arrinkanu waa arrin taabanayo ammaanka dalka laakiin waxa la dhihi karaa sida ukunta iyo dooradii war labada yaa horeeya ammaanka in la sugo kadib diiwaangelin la sameeya mise tanaa horeysa waxaa la hubaa ilaa wadanka uu ammaan noqdo wax badan oo diiwaangelintaasa ma suuroobayso taasaa waajiba dhammaanteena waa inaan ka fakarno ammaanka dalkan inuu sugmo oo la sugo wax kastoo lagu sugi karana awoodda la isugu geeyo nolol ma jirto ilaa ammaan la helo nolol ma jirto ilaa ammaan la helo marka runtii waa arrin muhiim ah loo baahan yahay in awoodda oo dhan la isugu geeyo oo dalkan ammaankiisa uu sugmo kadibna diiwaangelinu markaas ay suuroobi doontaa insha Allah taala laakiin in loo diyaar garoobo hadda ammaankii in la sugaaba dawladdu ay u kacday ahamiyaadkeeda ama awlawiyaadkeeda waxa ugu horeeyaba ammaankee in adana qaabkii markii ammaanka la sugo tan loo qaban lahaa in loo diyaarsan yahayna waa wax fiican. wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa wada qorshe lagu sameeyo diiwaangelinta madaniga ah kaas oo ay ku sheegtay inuu qayb muhiim iyo lafdhabar u yahay adkaynta amniga. u doona Soomaali Suudanes Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudanes waa badqabka bulshadeena.